chairman oo jirankeey oo barbaras kala shaqeeya sub-county committee علماء دعوة وين شيخ حسين أخانا شيخ جيلاني شيخ شافعي تيم كواتيم كاس الشقيني إلا وقت دولة نسيجا أنا كسبور من علي أنقرنا وحجر من أين عن هذا خليج كل الله بس أنا قلنا يجرى وعلي الجود كأبيس وهوس كذي وعن نفط هذا قبل مثل كروكي راح نبدي النفط يسأل أيك وهوس جري إيجان أيكان قبل ديانا هاي نفط بحق وذيك سو قرتي دعاء ودينا مدة يريد للسعودي وان أرك فهاي اللي BTDC ديوان أيضا ما قبل الله يريد حوالي دعاء يندري بنكر برداي كوس جري دنا DC نمان إسلامي كيو يعني هاي دنا واسكي على بريء وحين الماشي السياسي شو واسكي دين اللي يسكن جوك سفرتن هيكم على تشنا دنا وزير ما سو بوديو هذا حنا ملايين نقول بدون نمد داي ورّي شافعي مركا وحنو بلغ هذه النمرين وحين وزير لماذا نفتيض ومشغول بضاي لكن وحي قير قبل إلهي بقى كبرينا وحي على صدر نقود دعي وحال وحي قير كجرين ونصيب مركا علماء هنا هذه آد أمهسنيهم سيدي مروا بالدعوة ومتاقنيهم اللي باحلو برقل بالله أنا وانتاقنا وحي صوّض أنا أصقول كجرو ننديوكا بلبلا أو عصمان كماما ليغا وكالنجيني marka dambana imbiin noqday meel baringo dhinaceeda kale baa dhiyo ka balbala waqtiga ayada dhiyoga aad u weynaa Kenya dhiyoga meesha loo fadhiyo madaxweynaha fadhiyo ka dambeeyay ma jirin asaga la soo qaaday magaalada oo marka balbalooyin laga dhigay Allah u naxariistay doqay aabeen nisaam murowaha ay bilaabeen dhaarta asaga hadalku nagu soo dhaweeyay ani waxaan irkaalay inay yaro nagu yeeray rasaa garan duqa meesha fadhiyo ani horley baan ma anoo turjubaanay gaalka nooga turjubaanay dhaartii waan u turjumay xogaa bahash waa jirta daar ilahayna waxaa noo masaajidkan soo geliseen marka masaajid horta u dhex dhigteen nimba Soomaaliya waa yeeli jiray marka dumarka lagu qaadano sabareey oo bulshada ma ka caawar weyn aad u ordo u istaagin marka cid ay tagaan afka loo gelin jiray saab waxyaro shabag oo afka inta loo heli la dhigtaa loo heli bas baad markuu foorsado wixii baa yaa dhulka gubka si noo daaqi karo nurdi waxaan meesha soo fariiseen meel bahasha laga hadli karo ma aha kulay fadhigeeda iyo meel kale raasan doona meel iyadoo leedahay hadda maanta taa oo maalin maanta waxaan ka diray inaan kala qaybsano farxadan iyo wanaagan ininka maanta ilmahan ay soo bandhigeen iyaan horta u maanay xogaa abaar baa jirta abaarta ilaahay naga soo bixiyo maanta meel walba awal hore meel loo gurguuri jiray mar Istanbul loo carri jiray mar gediyaasa la jiray mar xag la deeraa loo gurguuri jiray feen jirtay mar beer waxa ka sigeelisheed iyo xoolaheena mar ay hatta raama aadeen oo xuduudda Soomaaliya hatta ay gudbeen oo soo marbaxeen oo soo noqdeen maanta dhulka oo la isku mid mar ilaahay aad u barino aan isku kaalmayno haday dugub ay biyo la'aan tahay dawlad kaligeed wax ma qaban karto الحمد لله هرت الموضوعي بيه اللي بحنا ونبرجي بالله قاعد جرني هو هرجلي اللي بحنا ونبيه في عن ومير وكون هتا جالس أشياء كلام معنا كوك في عن عبي صار مغلي مركتا أيضا ويهرج شيء مركب مالها لو هذا ميل بيرعان تيار هرت سكوب من البحرين مرمر واحد يرتاح إسكال لي دولة مرمرنا ويجر سوق الجاري واحد يهلي مرمرنا واحد مهليش وقت جيد إن قاله السوق صعب على تبعي النظام كذا بلو حجر إنتاس هذا بيش اللي حدو ما جت كل ما هو تدول السوق شغلنا قرن بيش السعر هرتين وعاوز صار حمل كذا بيش تمنع فور لو دين بالبري جاري واحد هو جد مالي كم حاله مركا إنك هدي على تام بقول الريبة ما يصدق له بل إن هذا تبرر بوكس أجر كم هو حساب كتير سنة خيسة كم حال دوينك لا يبيد نسيت ما أنت لو هي ما يسوى أيضا كلي إنها كفيرنا laga yaabo dad wax u burtaan hata intay ordaan in gaari ku soo qaadan karaan marka kana waa dadaalina inta kale marka ilaahay la baryo ilaahay aan barino abaartan ayada ilaahay baa keenay ilaahay baa bixin kara ibn aadam waxba kama qaban kara abaar marka waxaan wax uga qaban karnaa kali ilaahay oo noqono sida quraankiisu uu noogu sheegay ayada quraankeed oo tastaghfiru rabbakum innahu kana ghafaran yursilu samaa alaykum mitraran wa yumdidkum bi amwalin wa banin inta badheerta ayada وواحد والله نكر ربو المربي نكر مال ربي نكر روب ربو إنه استغفرت أو بدي مركب ولا ليه استغفرت أم بدي إنه إلهي أن نقولنا سو شيخ الشيء داش محمد بن شيخ نبكن عن هيستوريل نبجيل الآن هذا أردت عذرها هذا أردت أبارتا كمهنا
wada imaanay marka maxaa kaliya laga bixi ilaahay oo noqono marka abaartana aan isku caawino ruuxa baahan ee jiraanka aan fiirino boorada dad baa laga yaabaa dab shidan inuu jiro adigana dukaan kuu buuxo ama wiil kuu shaqeeyo xogaa kuu soo diraayo marka aan is ogaano dadka islaamka haddii mar qoryadii ay iska warqabin dadkii walaalihiina kale wax haystayna magaaris u jira ama Nairobi uu idinka fog yahay innikum baa iska warqabtaan laba sidii xawaasha marka iyada arrinta iyada waxaan maalad si fiican u gashan ta kale ee madrasada waa ala casheen safarta horsa u dhisno wad garanaysaan xogaa material Sheekh Hussein inama ma tashanay xogaa baan anaga xagga neega soo dirnay innikan wax baad gurteen oo dhismadii iyo fuundi iyo xoolo baad ka qayb qaadateen hadda wuxuu sheegay daay Sheekh Quraysh aad buu calacalay wuxuu sheegay inuu gurigii dumir rabo ilmaha qotada ah shoognay anigana waan ka qayb qaadano waan kaalmadiisan gali asagana uu noo ilaamin doonaa biidnillaahi alkariim soo hadii sheegay uu tabar oo ka geysan karno marka waxaan isku dayaynaa in ilmaha iyadan sida iyada loo dhaamo tala isku noqonayna biidnillaahi alkariim tan kale siyaasadda la yiri Ciise taagan ani waan taaganahay maantana inta kaga mahallay meelaha kale waa soo mar laakiin libax loo aad u soo maray waxaan u soo maraynin nimanka ma garanaysaan laan wada garanaysaan weel gurigiisa waka geeli iyo loodin waka marka isku halayn baan igu maan leeyahay Ciise nigu maan leeyahay marka siyaasadda intaasaan yaan kaga hadlay aad iyo aad baad u mahadsantiin markastoo noo baahataan garab baan idin nahay waqtiga taladeeda ay kartan waan idin maan doonaa namiyo mid hal noqdo umad aan mid ahayn waxba ma qabsan karto diinteena waa aragteen salaada jamac ku tukadaan la yiri waa wanaag midnimada ay arinta iyada hagaajinaysa ramadaanka bishooban soonna xajka markoo baan wada aadna arrimahaas oo dhan waxay ku tusaysaa midnimada iyo wada jirka wax loo sameeyo sidoo Ilaahay u qiimeeyay ee loogu farday inaan cid ku tukano masaajidiya ku tukano jamac ugu tukano bishoo inaan wada soonno bishoo inaan sikada wada bixino arrimahaas oo dhan waxa tusaale looga qaadan karaa midnimada marka ummadda haday midowdo taladeeda way hagaagaysaa nabadgelyadeeda hagaagaysaa diinteedana way hagaagaysaa marka aan midowna khilaafkan iska ilaaliya nabadgelyadana ku dadaala jiraankana hal badbaadiyo qorka ka jiro xarakeena abaar dadka hadda dib weyn ku runta ku dhex jira waan maqashay ma maray inta geeb baa xoolo xarayn dhaar baan intaanada qayleeda ku rufaanay xoolaha la soo sii daayo waxa lagu ruuxa la dhiibo inta col baa la sheegaya kii nimanka jiraanka moorka arnay namiyo colka asaga sida ku soo afjar lahayn dad islaam baa dadka aan isaysanana ayaga gaalada kuma tirnayno dad islaam meel islaam isku dagaalay ma ficni laga sugo oo soo xorta dhiig laba islaam ay ku daadan waxa laga yaabaa ruuxa kale inuu kugu soo duuliyo oo ku dulmaayo adigana wax baad geysanaysaa marka meesha ayadana garab aan isku noqono dadkii meesha degan ehelkooda waa kan ninka wali u samaysa qaylo oo markay dibax lagu soo dhacay anaga noo imaata marka meesha waxaan rabaa garab iska noqono niman culumada bilaabeen nabadgelyadii marbay ma fariisteen haddana fadhiga soo socda garbatula baa laga dhigay marka arrinta dadka meesha degan dadka abaar iyo col dhaxdooda iyo haddana geem oo sayr leeyahay baagi baan fiirnaa bay ku noolyihiin runtii waa nolol laga arrin loo xumaado aad qatar wey inta haday u kacaan geemka urunaya xoolii xaraynaya intaas oo lacag baan rabaa inta haddii loo kaco waa ciddi kale ee colka lahaa oo dagaalkii waa socdaa inta loo meel loo soo noqon malo waa abaar waa meeqa shay waa arrin aad qatar wey marka dadkaan aan u gargaarno aan raadinno si alla say nabadgelyo ku heli lahayn falkeeda aan galno marka intaasaan ani hadalkayga yaan ku soo gabagabaynay waa salaamantiin waa idin soo salaanay ilaahay khayr haydan siisaan noo soo dhawaysaynaysaa ka adnoo martiqaadeen aad iyo aad baad mahadsantiin carruurtana waad arkaysa say wax barteen nabiga carruurta la soo kordhiyo taxfiidka weyneeya markii la dhisaayana ninkii gaari ku darsan kara xaaniya ku darsado ninkii meesha dhagaxa qodqotay iyo dadka soo buri kara loorigo ha soo dejiyo waxay wasaatul jaari adoo dhimatay buu camalka ku socon cunug kasta wax soo tu ka barto meel kale wax ka sii bar inta adiga jirkeeda ku socon ninka taa hal dhagax gashado marka iyadana aan ka qayb galno markii la bilaabo taladeeda intaan ka bilaabi doonaa in nilay keeno walaalayaal ninkana qayb geysta xoolaha abaar bay u dhamaanayaan adiga meel kuma qabta niman nabiga sallallahu alayhi wasallam xoolaha maxad ku leedahay socdaan ana wada loo yiri maliyad buu nabiga وسير كلهين في هذا بعد بالله يروح كل أقوم بعد هذا دعني كونه حوله هذا أكاونت بحاني هذا ميل يلان يدوجاريه الماس أسكر واحد على كل يوم ويساق أنت عن كل بحي وقبري أن أوت جاي وقيام أوت جاي مالله فالحوالهم بدل الدمار النفتين يعني حق المجال كل يوم زمان وقت جرتين
carabtu ma wax laga soo gudjiray dadku waxa noo soo dirayna marna carrada tagnay oo safarnay dadku waxa noo soo diray anaga noo dhisay ee wax soo diray markii codsi la diro sanad baa lacagta ayada la aruurin oo intaasoo nin oo kaatiima leh intaasoo nin oo dowlad u shaqeey oo qaarkood $200 kun qaadan yaa intay iska guraan buu walba dhii waalidkayga u balkay markaas aan soo diri oo dhim sayt libaah lagu kala dhiso nin walba halkii ninka waxa laga $100 kaliya inuu ku leeyahay dadkan wax noo soo diray waa dad diinta fahmay